xiriirka kubadda cagta ee Afrika ee la soo gaabiyo CAF ayaa ka aqbalay codsiga ku aadanaa in la baajiyo kulankii u dhaxeeyay kooxaha kubadda cagta ee Zamalek iyo kooxda kubadda cagta ee Dakada. Zamalek ayaa ku aaday isku aadka tartanka isreebka CAF Champions League kooxda Soomaaliya horyaalkeeda heysata ee Dakada lagu magacaabo kadib markii ay ku dhameysteen kaalinta labaad horyaalka Egyptian Premier League iyagoo 8 dhibcood ka dambeeyay kooxda Al Ahly kuwaas oo iyaguna la ciyaari doona kooxda Koonfurta Suudaan ka imaatay ee Adlabara FC. kulanka koobaad ayaa lagu balansanaa in la ciyaaro Axadda Agosto 11 oo ku beegan maanta. si kastaba Zamalek madaxdooda ayaa ka codsaday in dib loo dhigo kulankan maadaama ay ku soo aaday xilliga ciidda Islaamka ee Ciidul Adha. kulan koobaad ayaa ka dhici lahaa Qaahiro garoonka lagu magacaabo Bedra Sports Stadium. si kastaba kulanka labaadna waxa uu ka dhici doonaa oo Dakada home ahaan u noqon doona isla dalka Egypt oo lagu ciyaari doona toddobaad kadib iyadoo ay jirto kooxda cadaanka inay ciyaarayaan tartanka African Super Cup gudaha bishan Agosto.